munaasabadan lagu soo xirayay kulan ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta gobolka Kandagmada laamaha ammaanka maxkamadda racfaanka iyo mas'uuliyiin ka socday xaafadaha magaalada Gaalkacyo iyo waliba qaybo kamid ah degmooyinka hoos yimaada magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayadoo dhammaan mas'uuliyiintii iyo wakiiladii ka soo qayb galay ay madashaasi ka hadleen kuna falanqeeyeen sidii kor loogu qaadi lahaa xaaladaha ammaan ee gobolka ayagoona isweydiiyay caqabadaha alaaba hor istaaga xaaladaha ammaanka waxaana hadaladoodii kamid ah أنا فاجئنا على الإسكاشن أنا وديار بانوي قاري وريق لها نوع سمعنا إلا ما أنا كرينا نوع بكرة ما قالوا بالعرب حتى قاري وريق أول سهل ما شريط ما كسرنا وسهل وهربا هول قاري وأنا ما هدي شقة قاري سو باسم ما قاري هذا اللي قدي صدق نبينه ما كسي درنتا إذا هيجروا وحكيروا ربا وحكيروا وكقبتا هول قال وحسهل ما ضلكوا هول قال ما تشري كرو معلم والله وإنه سلسوا وينام وحنا ذيك ما هنن وإذا الله يملك كم يلكر حكيم لكن أول الشقين نور تليفوننا يحكت يبصاصيدا يفتشنان غير كذا حيس أنت أصلا بروباغندا ربع أرنج توي لكن بومبورس كذي عبسي لا شري إذا كوعدين بومبورس كعشرة ما إذا كوعدين عشرة واحد أهم كور بالقاطع لما قادر إنه اللي ندليه أي نقطة قادنا ولا يلا ينقريني وما تنتهي. سلام كبعدي هدان النهاية نفور لينك وحان النهاية سلكي مقالة أي كفردي بان النهاية وعوتاقا يقولك هوينكو وحكست أو دبعة أو لسو درسة مقالة إن كنا والله قبل كقالكعي دقمة قالكعي ayuu wuxuu u yahay lafdhabar hoggaan saldhig xajiye xirxire xambaare sidaad ula socotaan dhib kasta oo gobol kasta ka dhacda ama meel kasta ka dhacda waxa uu admeeyay oo culayskiisa iyo dhibkiisa la soo wajahaa ururka haweenka xarunta wasaaradda ay u leedahay ururka haweenka degan ayagaa hooyada u noqda aabbaha u noqda walaala u noqda ilaa iyo qofka ugu dambeeya mid intiya mid kama oo biskooda oo gurgiisa ku noqda uu yahay ayagaa waxay u yihiin xambaar gaashaana oo adima ah oo wax kasta oo noloshu tahay la mara magaalada inteeda kale waa maqashaa ma aha ee ma aragto waxaa dhibkiisaas la wadaaga maamulka dhisan oo dawliga cid kale lama wadaagto halkaas waxay ugu yihiin ayaguna adimadii xoogii siintii qabashadii dhaawicii dhiigii dhibkii waxsiintii mayristii barbaarintii kabidii bixintii baanashadii wax kasta ayagaa dabka ugu jira ilmahoodana u naca gurigooda iyo ninkoodana u naca hawshaasna u istaago oo u ahaawo taabto nimanku waa inay horta ku wada socdaani waxaan caddaynaya horta ayagu wadiifo ay dadka ku hogaamiyaan inay leeyihiin oo ayagu wadiifo hadday hayaan inagina wadiifo inoo hayaan ayagu waa boor dowladdu haddaan maqashaan dowladdu waa boor wixii aan ciidamada iyo booliska ka ahay waxa wax suga oo amniga suga oo shaqeeya waa dadweynaha oo isku kalsoon oo gacmaha ishaysta iyo ciidamada dowladduna waa boor oo marjaca loo soo noqdo weeye waa loo yimaadaa taasaan ka leeyahay ugu dambeyntiina waxa aan mikrofoonka la dhex qaaday wakiiladii ka soo qayb galay oo aan weydiiyay faa'iidada ay u lahayd kulankani munaasabada aan noo leedahay waxaa kamid ah in dadkii barnaamijkeeda isku fahmeen ayna noqdeen dadkii dadka haysta diyaarna waa inay horumar sameeyaan waxaan maanta halkan maxaan ku raayto aan ka maqlay oo aan markasta waxaan ku soo laalaabaysay dhibaatooyin tirada ka batay oo ku cusub aan weligeed la maqalin oo ay ilmihiin inta lala carro irbad lagu dhufanay irbadu waxay tahay aan aqoon sababta loola carray aan aqoon dadka la carray aan aqoon laakiin waxaan rajaynaynaa waqti dhow inaan soo qaban doono dadkaas ay soo bixi doonaan insha Allah waa tahay kaalinta haweenku ay ka qaadan karaan nabadda iyo taageerida dawladda maxay tahay waxay ka qaadan karaan in dadkii abaabulaan bulshadii inay abaabulaan oo u sameeyaan barnaamijyo ay ku wacyigelinayaan ayna ku horumarinayaan bulshada inay noqoto dad isku xiran seminaarkii muddada socday qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka dhalinyarada maamulka laamaha dawladda dhammaantood waxay isugu yimaadeen horumarka iyo ammaanka gobolka marka waxaan ka faa'iidaynaa ayadana inaan ka tashano xayir
waana soo dhaweynaya telefishinka kalsan sida habsamada loo barnaamijkaas uu nagala qayb qaatay. kulankan ayaa sanadkiiba qabsooma 4 jeer isuguna yimaadaan degmooyinka iyo mas'uuliyiinta gobolka Mudug loogana hadlo qaabkii kor loogu qaadi lahaa xaaladaha ammaan ee gobolkani Mudug iyo degmooyinka hoos yimaadaba. waxaana la filayaa kulamada caynkaas oo kale ah haddii ay sii socdaan in ay wax weyn ka bedeli doonaan xaaladda ammaan ee haatan gobolku ku jiro. xayir cabdi xayir Kalsan TV magaalada Gaalkacyo.